بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ولا ليال ومعلنتي تمناد رمضانك كلمتيني أن جيديني مالين والبا وحنسوهيني وكسوهليني دعاء وناق أي leedahay iyo ajarka ay leedahay iyo faa'iidada laga helo. waxaan ku gabagabeynaa maanta 5 duco oo kitaabka Ilaahay ku sugan oo tilmaamaya ducada waalidka ay u duceeyaan caruurtooda. in badan oo naga mid ah oo hadda caruur haysta iyo in sugaysa intaba waxa qof kasta jecel yahay in caruurtiisa ay noqdaan dad wanaagsan oo fiican. in badan waa loo duceeyaa, laakiin ducooyinkani waa ducooyin Ilaahay uu doortay kitaabkiisa Quraanka ah. waana ducooyin aad iyo aad u qiimo badan oo badankooda nabiyaal ay ugu duceeyeen caruurtooda iyo dad fiicnaa oo Ilaahay uu noo soo guuriyay subxaanahu wa ta'ala. waxaan oran karnaa waa ducooyin qofka kaga filan caruurtiisa inuu ugu duceeyo adduun iyo aakhira labadaba. waxaa runtii wax aad iyo aad loola yaabo ah saynu caruurteena ugu duceyno iyo wadada aynu u marno iyo wadada aayadaha Quraanka ay u mareen faxa u dhaxeeya farqi aad iyo aad u weyn. saan u tagi doono laba arin oo Quraanku aad xoog u saaray ducadooda marka caruurta loo duceynayo baan labadu midna inaga inoogu jirin qaabka aynu u marno markaynu caruurtina u duceynayno. sida awgeed waxaynu ka fahmi doonaa ducooyinka oo dhan waxay xoog saari doonaan ama qiimo weyn u yeeli doonaan caruurta loo duceynayo hagaagooda iyo fiicnaantoodu inuu ku xidhan yahay waalidkooda fiicnaantooda. ama dhinaca haddaan u dhigno waalidka duceynaya oo dad fiicana waa calaamad tilmaamaysa in caruurtiisuna ay fiicnaanayaan. oo Ilaahay Quraankiisa wuxuu ku sheegay subxaanahu wa ta'ala ka sheekeeyay markay kulmeen Nabi Muuse iyo Khadar baa waxa kamid ah waxyaalaha ay la kulmeen inay magaalo u soo martiyeen oo marti gelin waayeen. deena darbi dumay Khadar intuu arkay oo darbigii toosiyay. Muuse wuxuu ku yiri maxaa darbigan u toosinaysaa? deena Khadar wuxuu ku yiri darbigan hoostiisa waxaa ku aasan dahab iyo alaab muhiim ah waxaana iska leh laba wiil oo agoon oo meeshan jooga. sida awgeed waxaa loo ilaalinayaa wiilashan inta ay ka soo korayaan iyo inta ay ka soo qangaarayaan. sababtuna waxa weeye wa kaana abuuhuma saaliha, aabahooda wuxuu ahaa nin wanaagsan oo fiican. fiicnaantii aabahood uu fiicnaa baa waxay keentay in caruurtii loo badbaadiyo xoolahoodii. waxay leeyihiin culimadu waxaa laga fahmayaa aayadan qofka wanaagsan oo dhaqanka fiican oo caaqidada fiican oo xalaasha quuta in barakada cibaadadiisa Ilaahay uu ku ilaalinayo caruurtiisa adduun iyo aakhira labadaba. iyagoo yaroo nool oo xoolahoodii la ilaalinayo bal waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa aabbahan uusan aabbihii ahayn awow hore u ahaa oo ilaa awowgii labaad saddexaad afraad shanaad lixaad la ilaalinayay wanaagii aabbaha u lahaa. ibn Kathiir wuxuu leeyahay Abdullah ibn Abbas wuxuu leeyahay radiyallahu anhu Ilaahay wuxuu sheegay caruurtan in aabahood fiicnaa iyaga wanaagooda lama sheegin inay fiicnaan lama sheegin laakiin waxay ku fiicnaanayaan fiicnaantu aabahood uu lahaa bay ku fiicnaanayaan. marka aad waxay tilmaamaysaa waxay noo tilmaamaysaa arin muhiim ah oo ah waalidka markay hagaagsan yihiin in waxa ka imanaya caruurtooda ay hagaagayaan. ibn Shudab wuxuu warinayaa Abdul Aziz ibn Marwan wa Umar ibn Abdul Aziz aabihi baa wuxuu damcay inuu guursado Umar ibn Abdul Aziz oo ahaa khaliifkii shacabka muslimiinta hooyadii inuu guursado damcay. markaasuu u yeeray wuxuu ku yiri xoolahayga
waxaa iga soo saartaa 400 oo diinaar oo xoolo xalaal ah lahuba boqolkiiba boqol ah maxay waxaan doonayaa inaan guursado oon abuuro qoys wanaagsan dabadna wuxuu guursaday Umar ibn Abdul Aziz hooyadii waxay dhashay Umar iyo 5 nin oo kale oo 5tiiba khulafa noqday maxaa u keenay barakadii xoolihii lagu aasaasay guriga u keenay Ahmed ibn Hafs waxa uu leeyahay waxaan u soo galay دخلت والد أبي عبد الله إمام البخاري أبيه بان أصوغلي عند موتي مركو الإيماني البخاري حديث توريه إن غنى عنك لأنه حيويل أبيه لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة حولها يجا أن وتجي عروتي ذا كما أجي هل درهم أو حارانة إيه حتى هل درهم أو شك كتير كما أجي بير يعني يعد شيء مركه وحولك بربابي بخاري وكبرباري مركه والد كأنه يسوي حاجة أو في عناده ووحيالها تلمامة يعروت إني حاجته بل وحي أورنتيرين ذلك حكام العقل بدنا وحي أورنتيرين نينك ظاهر كدركي سنذيف تيهي آدابتي سنة بدن تهي أخلاق سنة في عن تهي وحاكود ضيدا أو كقاطع عروتي ساكقاطع يعني آدابته في عن يا أخلاق في عن يا حلاش لقوته عروت والدك كضيدا وحولن تري فضيل بن عياض يسوي إلهي بريئة وحول إلهي يو وحن كد ذالي ويلكيغا علي إنان أدبيو آداب تبروه فلم أقدر على تأديبه وأن أودك رواي فأدبه أنت لي إلهي وأدوه مات أدبه يعني في آبه وحو أمر يا عنقس إنو هقاقو هدو حتى أسيقو أودك روايو إنو أقود بإلهي إنو أغبري إنو أبداديو محمد المكدر وحاوليه إن الله يحفظ بسلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وناق قفك في عن أهل خير كأ وحاكفا إذا عروتيسة إيا عروتيسة إيا قرابديسة إيا درسكيسة انتا صورنا بالغيابا إله سبحانه وتعالى إنه كحفظيه أو كإلاليه سعيد المصيب وأن تابعيها باوحي أورنتيري ويلكيسو كأورنتيري إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد صلاة بنت كذا مركاسا وحانا حسوستا ويلكيجي سوءها غاغو أوغيس بان صلاة سيادية بالماشا تربية إكرها دينيان iyo meesha aan ka raadina farqiga u dhaxeeya fiiri aabaha oo hagaaga baa waxay tahay tarbiyada ugu weyn ee caruurta lagu badbaadiyo hooyada oo hagaagta baa waxay yihiin tarbiyada ugu weyn ee caruurta lagu badbaadiyo walidaalika waxa laga wariyaa muqaatil muslimaan ninkii la oran jiray baa wuxuu u soo galay calaal mansuur ninkii mansuur la oran jiray marka muslimiinta أميرك أنه قني ولا لا بيعته مايو مركضك هذا في عم بيهاي مركو حكيدي إيواني وحال إيدوت مدحني ما إيواني مقاتل حكيدي أمير المؤمنين ما وحان كوانية وحان أسو تاغنا وإن ده يقو أركان بس وحان كوانية وحان مغلي تبنا وحيد ما يوحد كوانسا وحا أدركت تاساك في عنه وحلو وحان أسو تاغنا عمر بن عبد العزيز ومركو ديمانيي كدنتي كوب يتبنويل وترك 18 دينارا حولنا وحوغتغي 8 دينار 8 دينار 5 كميدا كفن با لوغو ايبي 4 كميدنا قبر با لوغو قوداي واسغال intii soo hadha caruurta loo qeybiyo waa imisa waa 2 diinaar waxaan kaloo tagnaa buu yiri ninkii isaga ka horeeyay Hisham ibn Abd al-Malik loo oran jiray oo isna koob iyo 10 caruura wiil ka tagay wiil kasta oo wiilasha ka midana
وحوغا دنتي هل مليون أو دينار هوتا لباس أنسو تاقنابي أغو واللبانين أو اسكو حيقي أو قراباها أو نينا عرورتي سأوغا دنتي كويو 8 دينار أو شان كميدا كفن لوغي إيبي أفرنا قبر لوغو قد لباسو هادي كان كلنا قف كستا وحوغا دنتي هل مليون أو دينار تاوا أسو تاقنا وحان أسو تاقنابي هل مالين بانا صومرتي أو عريرتو عمر بن عبد العزيز إلى دينار وقدنتي أي صدقي سنيان بقول فرس أو جهاد كأه بنسو تاجنا وحن كلو أسو تاجنا ننكي عروتي سأقدنتي هالك مليون دينار إياه قدرك توقسنا يدك برية يعني هل وقتي وضع دعضي محوت الماما يا مركة محوت الماما يا ننكي عروتي سأقدتها يسقو آداب يا أخلاق يا حلال ميرشو إني بدبادي دونان أدوني آخره نيكي حاران يا ظلم يحكي الأوقات جنا وحوش شيء إني سنفائدي دوني ولذلك عمر عبد العزيز مركو لمني فراش صارنا لو حالوي عمرو انتي نوليد أمير المؤمنين أهيد عروت هذا وحولا ما آذن سين ماذا تركت لأبنائك يا عمرو وادمتي ما أنت محاد عروض هذا وتكت مركز حيري تركت لهم تقوى الله وحان وتجي عبسيد إلهي فإن كانوا صالحين حديدت في عيهين فالله يتولى الصالحين ذلك في عن إلهي بكفارة قاضي وإن كانوا غير ذلك هذا سيدا أهينا حولها يجي مايو إن معسي ذنوب لو سمايو انت أصودا محاون سهر مرنا ولا عليا وحاون سهر مرني حتى دعوينك قرآنك لوشا وتجدونا عرورت إني هجاجتو وحاقي وينك والدك وهجاجة عرورت إني هجاجتو وحاقي وينك والدك وكأركان هجاجة عرورت إني هجاجتو وحاقي وينك والدك وحلال قوته عرورت إني هجاجتو وحاقيب وينك والدك وإلالي وحي إلهي كربي عرورت إني هجاجتو وحاقيب وينك والدك أو مجتمع اللوغي قان أما لغا أركو ضد نظيف وفي عن إنيهين أنو سوقدنو سنت الدعاء القرآن كو شاقي ومهم تين لو قد ذا عرورت لو قد دعايو دعاء أقوها الرئيسة وحاد دعينا يا نبي الله إبراهيم عليه السلام يا النبي إسماعيل هذا الدعاء أي دعيين سيكون بلابين محيسكو دعيين وحيلها القرآن كليه هي مركي لودر إن كعبة اللسان أي كعبة لما اسمه كتيران بدعايستين وحيدهن ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك دعاء أسوأ دعاء قالوا وحيدهن إله يو لبعض هذا وحنا قدكتا دد في عنو كوه جان سما أو توحيدك يدين تقول أنت عرورت هذا وحنا قدكتا دد وناقصنا أو مسلمين جعلوا على باقي بود تكواد أمهم سن أنت عرورت اللو دعين والدك يقعد دعيستي ماشي إنه حق صارنه إنه عرورت كبلونه إنه وحنا دونا عن سمينه عروت أن دعينه حرام ما كتيرنا عروت أن دعينه ظلم ما كتيرنا عروت أن دعينه يعني وحام أيضا إلها تماما يا إن والدك مركور يسوي سدعيه أو يسوي حجاجه فاقد الشيء لا يعطيه وحاضن هيسن ما بحين كرتيد محب مركز أنبياء وحي تمامين هرت إيجا إلهي بري ربنا واجعلنا مسلمين لك إلهي وحنا غدقتا ددوان وناقصن وهجانسن ومن ذريتنا عروتنا حقدقتا دد في عنه هجانسن أرنك الله بعد مسكس وحيتهاي عروته وحلو دعينيا إني إلهي كحنادا إلهي عابدان عروتي إلهي كحناتا عافيمات إيه مستقبل ويهلي دونان أنبياء دعادو إلهي نوسو قد بيي كمان موقتا وحا أدون لو دعيه محايل قفك آخرة وهاقاكتو وأقونت إلهي وهاقاكتو وحاشكي أنا إن أدونك وهاقاقيو حمام بوسنقلين
سينو سنجلين ترو سنجلين ليسو سنقنين محايا الدين تيغفكي قشي دعاء اللباد يا الله سبحانه وتعالى والشاقي ينوى الدعاء كلو حكو دعينا نبي الله إبراهيم عليه السلام أو حليه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام دعاء سودي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلهي وحد كبد بادي سانيغا يعروتي ذا إن قال النقنه وهو نبي الله إبراهيم وأبيه توحيدك دعاء سلبا خدنا إن كجرتا كو نفتي سكب العبي يدعاء إن إلهي لعابدو لو حرمه إلهي أنيغا نفتي ذا يعروتي ذا با وحد نغفقيسا إن النقل ضد أصنام تعابد وقالوا به وعلم التفسير كليهن هدي النبي إبراهيم بقي وعروتي سأبقي وقال لما أقبقي قف كدن بيو آمين ما شرته وإنما الدعاء الله بدياء إن أذيك يا عروت هذا إلهي إسلامي ما أكدله وقال لما الله سبحانه وتعالى وسنجارسين ينوى دعاء الله بعد دعاء صدحات إسلام النبي إبراهيم بكل دعينيه وحليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إلهي وحائق دغتا من صلاة هجاتي أو توسية عروتي ذي أنا قبا ومر صدحات ودعاء النبي أو كل دعينيه محي نفتي سينو هرمريو كبعد عروتك كحتيو إيه وحا لقد دعينيه محيا إن حريرك إلهي يسوي تشوكتا النقدان لكن النبي إبراهيم عليه السلام ماشي وحو كدو عينيه وليه إلهي وحادي قدكتا مد صلاة توسية أو صلاة إلالية أنيق إيا عروتي ذا مرصد حاضو حين مرينا أو دعاء عروت أي كوريسو والد كيو يسوي يسدو عينيه هقاق والد كان وحكو حدنيه هاي عروت هقاقيس عروت إن الحولة أتعبتو ويادون أتعبتو ودقسريه ودستو waxa uga muhiimsan wixii ilaahay u abuurayo ahaa in ilaahay caabudaan oo adduunkana dad dhowrsan oo ilaashan oo cibaado iyo khayr lagu yaqaan noqdaan aakhirana tana kula galaan talo socdo waa taas adduunku waa iska iman doona mustaqbalku waa la heli doona xoolaha waa la heli doona caafimaadku waa la heli doona laakiin asalka waxa ah inay ku hagaagaan ducada afraad ilaahay wuxuu ka waramayaa قرآن كورمايا دل يلاهدو عباد الرحمن الدوم إله وبحي توادنا إله وحوش شاقي الدوم ماذا استقوا الدورتي على مدها إليهين قال له حليه وحكم ذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إلهي وحنكابرينا oo noo hibaysaa haweenka yaga iyo caruurta yadaba ku indhahayo ku farxaan markay arkaan ishayadu ay degto oo raaxo dareento annagana waxa naga dhigtaa dadka muttaqiinta ah dad iimaan u ah oo ay ku deedaan naga dhig ducada markii waxa la weydiiyay xasan bas waxa lagu yiri abi saciido hab lana min azwaajina wa dhurriyyatina ma aakhira laga hadlayaa ما يوحي الدنيا آخر لبضبا دعادني الدنيا آخره إله الدون كان وحنا وقدقتا هدو حد عيني النية هي حاس كي يعروتي ذبا كوا إشياء كفر حدو هذي قبرت هنا إله وحد يقدقتا نين كي يعروتي ذبا كوا إشياء كدقتا كفر حدو يعني مركا قبردو أعرفته أم ويلك وأركو عروتيسي هي غير كيسي وإله عابدية وخير كتيرة وتكنية ودعاء سنية وحلال ميرانية وحلال شقي سنية والفرح يسوى الندقسة محل وحال أرغتي وحاي يسوك قفلا هدي أدونك إسدام كن نقدانا آخرنا ساسي كن نقندونا دعاء قدام بيسا شناد القرآن كو الشيغي إلهي وحكوه سبحانه وتعالى وكسو الشيء كذلك في آخر سورة الحقاف وحول لي مركو حاكمك وحي كدو عيسانيان ربي أوزعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. waxay leeyihiin ilaahayow waxaad igu hagaajisaa oo igu hanuunisaa inaan ku shukriyo nimcada aad siisay iyo nimcada waalidka aad siisay labadaba. waxaa kaloo alla igu hanuunisaa in amal fiican oo raali aad ka tahay aan sameeyo. inta markuu soo duceystay buu wuxuu leeyahay wa aslix li fi dhurriyyati, ilaahay caruurta ee hagaaji. ma hagaajin karo, awoodan ku hagaajiye malihi. haddaan allo adigu hagaajin, ilaahay adigu ii hagaaji. laakiin maxaa laga soo hormariyay? naftiisii inuu ka soo hadlay. maxaa lagu dambaysiiyey? innii tubtu ilayka wa innii min almuslimiin. ilaahay waan kuu toobad keenay waana kuu soo hoggaansamay. ducada marka kale waxaynu ku soo koobaynaa ducada waalidka caruurta u ducaynayaan. aayadahan waxay soo koobeen wixii caruurta duco kaaga baahnaayeen. duco kale uma baahni. intaas alle inoo sheegay oo nebiyaal ay ku ducaysteen oo dad fiican ku ducaysteen baa waxay inooga baahan yihiin koow iyaga inaynu badino ku celcelino. labo macnaha inaynu fahanno oo horta inagu hagaagno oo toosnaano. ta saddexaad oo ah in lagula dadaalo caruurta aakhiradooda in la badbaadiyo adduunku badbaadi doonaayo. haddii caruurta saa loogu duceeyo oo sidaa ay noqdaan oo hagaagaan wasaan ka rajaynayna waxaa ka soo baxaya xadiiskii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka qofku uu dhinto waxyaalaha dhimashadiisa ka bacdi anfici doon waxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu lah, wiil fiican oo wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo kuu soo duceeya. yacni meesha waxaynu ka fahanay waxaad beerato adigu baad guran doontaa. haddaad beertay caruur guri qurux badan iyo xoolo aan loo abayeelin loo sameeyo waxaad guran doontaa waxaad beeratay. haddaad beertay caruur wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo xalaal lagu quudiyey oo diin lagu tarbiyeeyey oo ilaahay xaggiisa loola cararana waxaad guran doontaa beerta inay kuu soo duceeyaan. ducooyinkaas shanta waa ducooyin aad u qiimo badan oo qofka muslimka ah waalidka ah inuu ku celceliyo ay tahay macnaheedana uu fahmo. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.